Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkani waa channelka idaacadda codka gobolka Banaadir ku soo dhawaada qodobada warka waxaana ugu waaweyn duqa magaalada Muqdisho oo gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Denmark wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo fariin degdeg ah ka soo saartay halista fatahaadda webiga Shabeelle ee deegaanada Koonfur Galbeed odayaasha soo xulaya xildhibaanada Galmudug oo la xareynaya maalmaha soo socda madaxweynaha Mareykanka oo si kaftana u sheegay in ay baabaaday awoodii kooxda Daesh kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena ugu waaweynaa waa 6 November sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee gudoomiyaasha gobolka Banaadir oo toddobaadkiiba mar la qabto shirkan ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay kamid yihiin dardargelinta gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyay magaalada Beledweyne caasimada gobolka Hiiraan iyadoo warbixino laga dhageystay xubnaha guddigaasi sidoo kale waxaa kulanka diiradda lagu saaray ammaanka caasimada iyo kor u qaadista nadaafadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in guddiga gurmadka fatahaadda dadka ay masiibada ku qabsatay magaalada Beledweyne in ay shaqo wanaagsan qabteen isla markaana hadda meel wanaagsan wax marsinayaan shacabka ku nool caasimada Soomaaliya ayuu ugu baaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka gobolka si looga hortago qatar walba oo ammaan darro ka dhalan karta caasimada Soomaaliya ka dhici karta shacabka ayuu ku amaanay sida wanaagsan oo dulqaadka iyo sidoo kale kartida ay ku dheehan tahay ee ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee dawladda gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa gudoomiyaasha degmooyinka faray in ay si laba jibaaraan shaqada ay u hayaan dadka ku nool caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Denmark ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Denmark ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr oo ay kamid tahay taageerada Denmark ay siiso Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada dal sidii loo wanaajin lahaa oo kor lagu qaadi lahaa iyadoo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Denmark uu dawladda federaalka ee Soomaaliya uga mahadceliyay dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Denmark in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay guul lixaad leh ka gaartay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu ku amaanay in ay ka soo dhalaashay doorkii ku aadanaa la dagaalanka musuqmaasuqa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhanka kale wuxuu uga mahadceliyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Denmark wada shaqeynta wanaagsan iyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Denmark wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka digtay fatahaadda halista ka dhalan karta webiga Shabeelle haddii uu ku sameeyo deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay macquul tahay in webiga Shabeelle uu fatahaad halista ka geysto deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed sida gobolka Shabeellada Hoose iyo qaybo kamid ah gobolka Bay warkan qoraalka ayaa ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa loogu sheegay in dadka ka agdhow goobaha webiyada ee Koonfur Galbeed ku nool inay ka dheeraadaan isla markaana ay ka digtoonaadaan qatar kasta oo ka dhalan karta fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maro webiga Shabeelle ayuu wuxuu ka geystay fatahaad aad u adag taas oo saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo kamid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne odayaasha soo xulaya xildhibaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa la shaaciyay in la xareyn doono maalmaha soo socda guddiga dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee wasaaradda arrimaha gudaha dhawaan ay magacawday ayaa maanta kulan ay yeesheen waxay sheegeen in wejiga labaad ee doorashooyinka Galmudug ay gali doonaan Cabdinaasir Gel Cilmi oo ah gudoomiyaha guddiga ayaa waxa uu tilmaamay in ay meel fiican u mareyso xareynta odayaasha soo xulaya xildhibaanada isla markaana maanta wuxuu kormeer ku sameeyay xarunta shir kale ee magaalada Dhuusamareeb oo lagu talagalay in odayaasha lagu xareeyo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa si kaftana wuxuu u sheegay in ay baabaaday awoodii kooxda Daesh madaxweynaha Mareykanka ayaa yiri kooxda Daesh awoodii ay lahayd way ay baabaaday hogaamiyahoodii nafla cariga ahaa Abubakar al-Baghdadi gacanta ciidamada Mareykanka ayuu ku baxay inta hartayna maalmo kooban ayaan ku soo afjari doonaa caalamka iyo Mareykanka waxaan u ballan qaadayaa in aan tirtiri doono kooxda Daesh oo hadda aan ka adkaanay ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka dhowr dal oo kamid ah Yurub iyo reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen in hadalka Mareykanka uu yahay mid kicin iyo abaabul u horseedi kara kooxaha argagixisada gaar ahaan kooxda Daesh oo ay tilmaameen in awoodoodu hadda ay muuqato
warkii oo aad kala socoteen warbaahinta codka gobolka Banaadir waa naga intaas tan iyo kulan dambe nabadgelyo.